arrinta la xiriirta wada hadalka Mareykanka iyo Iran waa malafka ugu weyn ee maanta adduunka gaar ahaan bariga dhexe si gaar ah indhaha loogu hayo. Warbaahinta ayaa haddaba u tabinaysa qaabab kala duwan oo mid kasta uu gadaal ka taagan yahay ajanda siyaasadeed oo waaweyn. Sidaad la socoteen barnaamijkeennii hore ee sii daynay maanta, wargeyska Israel Hayom ayaa tabiyay in saraakiil ka socota dowladda Mareykanka iyo Israel ay ku fakarayaan sidii wada hadallada Cumaan ay garwadeenka ka tahay loo fashili lahaa oo wajigiisii saddexaad ee foolka la doonayo sabtiga soo socda in la kulmo arbacaduna ay fariisanayaan guddiyo farsamo. Haddaba Cabbaas Caraaqji ayaa war soo saaray oo la hadlay wakaaladaha wararka dalkiisa. Waxa uu yiri dalkan la yiraahdo Iran waa dal fac weyn taariikh ahaan yaqaana dhakooyinka siyaasiga ah iyo meelaha kala duwan ee la maro. Sidaa daraadeed ajandayaasheena iyo fikirkeena horta ma jirta cid inoo meeri karto oo arrinteena sida ay doonaan u fasiri karo. wada hadalladu waa ay guuleysanayaan sida aan annaga rabno ayayna wax noqon doonaan. sidaa daraadeed kooxaha warxuma tashiilka waxaan ku leeyahay joojiya waxyaabaha aan macnaha badan ku fadhin ee aad wadaan oo aad hadba meel keenaysa. waxay u muuqataa inuu u jawaabayo Israel iyo qolyo kooban oo la aragti ah oo doonaya wada hadalladan inay noqdaan kuwo fashilma. horey dowladda Lubnaan aan iraahdee Cumaan oo Masqad wada hadalladu ay ka dhacayeen iyo safaaradda Cumaan ay ku leedahay Roma, isla markaana wasaaradda amuraha dibadda ee dalkaasi ay garwadeen ka tahay wada hadalladan. waxay hore u sheegeen wada hadallada tallaabooyin badan in hore loo qaaday, guulo badanna la gaari doono, isla markaana Mareykanka aan iraahdo Iran ay hadda si weyn wax iskula arkaan. iyadoo taasi ay taagan tahay ayaa haddana kooxo badan ay wax carqaladaynayaan oo ay u muuqataa in ay Israel doonayso in wada hadallada iyadoo oo socda dhinaca kale ay weerar ku qaado Iran. Mareykanka ayaa hore ugu sheegay Netanyahu dagaal kasta oo wada hadalka oo socda ka hor uu qaado in isaga kaliya ay ku tahay. Israel ma haysato hub awood leh oo hoos u qodi kara isla markaana gaari kara warshadaha nuclear-ka ee dowladda Iran oo dhulka hoostiisa ku yaala. laakiin Mareykanka ayaa doonaya Iran inay soo furfurto warshadaheeda hubka balistiga ahna ay joojiso oo ay meelaha dheer ku weerarto, taas oo Israel ay baqdin xoogan ka qabto haddii aysan dhicin in wax badan oo dhibaatooyin ay gaari doonaan Tel Aviv. haddaba Iran iyo Israel wali waxa ay muuqataa inay isku jawaabayaan xilli Mareykanka uu doonayo in gobolka dhexe biyo qabo uu ku shubo, isla markaana Iran la yiraahdo jooji dhinacyada aad taageerayso wada hadalladana aqbal si wanaagsan wax ku soo dhamaadaan. laakiin Netanyahu oo isaga meel dheer wax ka arkayana haddii labadan dhinac ay saaxiibaan cidda bannaan ku dhacaysa inuu isaga yahay, ayaa bilaabay dagaalka warbaahinta iyo waliba qorsheynta dagaal xabad la isku adeegsan karo oo ku qaado dhinacaasi. qodobkaas haddii aan intaas ku dhaafo meesha ku dhammaan doonaana kulli waad ogaan doonaa. dalkii Lubnaan ahaa xaaladda ayaa meel adag ka maraysa. Naciim Qaasim iyo Joseph Aoun generaalka talada Lubnaan la wareegay ayaa hadda aad isku arka. Joseph Aoun waxa uu leeyahay wax dowladda ah oo aan hub haysan karin ama hub haysan karaa ma jiraan, taasoo macnaheedu yahay hubka ay Xisbullah haystaan soo wareejiyaan. Naciim Qaasim ayaa haddaba ka jawaabay arrintaas oo dhahaya innaga cid hubka inaga dhigi karta ma jirto, waa riyoonayaan cidda arrintaas samaynaysa. waxay u muuqataa Lubnaan hadda inay isku muuqanayso oo ay xaaladdu aad u adag tahay. sidaad la socoteen waddankaasi taariikh dagaal sokeeye ayuu aad u yaqaanaa. waddankana kala qaybsanaan baan ayaa ka jira. dhaqdhaqaaqa Amal hub ayay haystaan iyo gantaale iyo drones. Xisbullah hub ayay haystaan iyo gantaale iyo drones iyo ciidamo fara badan. dowlad ku dhex nool ayaaba mararka qaar lagu tilmaamayo ka hor inta aanay Israel si adag u naafayn. dowladda ciidamadeeduna waa joogaan, waa dowlad muctarifa oo adduunka ay aad u yaqaanaan. haddaba maanta maxaa dhacay? goob tuulo ah oo ka baxsan magaalada Beirut ayaa niman xisbiga ka tirsan waxa ay surteen gantaalo. waxay yiraahdeen Israel ayaan hoobriiska leenahay si ay xaaladdu ay ku hayaan shacabka reer Gaza ay meesha u joojiyaan. laakiin ciidamadii dowladda ayaa markii ugu horeeyay ka hortago yiri joojiya
dalkan Lubnaan ayaa la yiraahdaa dawlad ayuu leeyahay ciddii rabta waxa ay doonto kama samayn karto marka wada hadal iyo heshiis ayaa gashaan waa inaad aqbashaan kadib arrintii ayaa ishorkaa ka dhacay hadalkaasi kadibna waxaa jeediyay madaxweynaha Coon oo yiri waa in hubka kaliya dawladda gacanteeda uu ku jiro adduunka markay isweydiinaya ninkan military ka imaaday wuxuu ka faa'iideysanayaa jabka Xisbullah gaaray mase ka badbaadi karaa faragelin ay Iran ku samayso dawladdiisa mase waxay noqon doonaa dalkan dagaal sukaaya inuu aadi doono oo xaaladdu waa ay ka sii dari doontaa mustaqbalka ayaa ka jawaabaya iyo waayaha soo socda haddii aan sii eego wararka dhinaca Jordan ka imaanaya dawladda Jordan ayaa markii ugu horeysay muuqaal baahisay waxay leeyihiin warkii aynu sheegayno oo rag hubaysan inaan qabanay oo drones wata oo gantaalo sameynaya dhedheel ma ahayn waa kuwana hal arko warbaahinta ay soo fariistaan waxay leeyihiin raggan annaga xarakada islaax waxaan ka tirsannahay ikhwaanka waxaynu doonaynaa wadankan inaan ka dhigno wadan huban oo wanaagsan oo aragtidiisa wata oo mabaadi'diisa go'aamin kara aan Israa'iil u talin marka dawladda hadayna soo qabatana de gacanteedan ku jirnaa waxay doontaa samayso marka Israa'iil ayaaba hore u sheegtay inay halis adag ku jirto oo loo goodinayo bariga dhexe waa uu adag yahay xaaladiisa hadda marka la fiiriyo meesha wax u socdaan daqiiqad kasta ay wax isbedeli karaan barnaamijka caawa qaybtan intaas ayaan ku eebiyaa waa barrood